Sida aan wada ognahay, shirkadda YouTube waxay leedahay adeeg lacag bixineed oo lagu magacaabo YouTube Partner Program. Si aad uga mid noqotana waxaa loo baahan yahay inaad soo buuxiso 40 shuruudood. Hadda muuqaalkeena waxaan kaga hadli doonaa marka aad soo buuxiso shuruudaha aadna ka mid noqoto YouTube Partner Program. Waxaa jira 2 qodob oo jaangoynaya xaddiga lacageed ee la siinayo YouTuber kasta oo rabo inuu ka sameeyo lacag. lacagta YouTubersku ay helaan isku mid maaha, waa ay kala lacag badan yihiin. Haddaba labadan qodob ayaa YouTube ka sameynaysa si loo ogaado xaddiga lacageed ee lagu siinayo. Waxa ayna kala yihiin RPM iyo CPM. Haddaba si aan u fahanno RPM, waxaa qasaba inaan marka hore soo fahanno CPM. Waxaa lagu soo gaabiyaa cost per mile. Waxaa loo qiyaasaa xaddiga lacagta qofka wax xayeysiinayo uu ku bixiyo kunkii qof xayeysiinta la tusayaba. Waxa ugu badan YouTube-ka ay lacagta ka samayso waa xayeysiimaha dadka. 45% waxaa qaata YouTube-ka, 55% soo harayna dadka kale ayaa loo qaybinayaa. Tusaale ahaan, haddii qof wax xayeysiinayo uu ku bixiyo kunkii qofba $1, kunkii daawashab waxaa lagu dhufanayaa $1, waxayna noqonaysaa $10. Haddaba $10 shirkadda YouTube waxay qaadanaysaa 4.5. 5.5 ka soo harayna waxaa la siinayaa qofka muuqaalka uu soo geliyay. Haddaba waxaa jira 2 qodob oo saameyn ku leh CPM, korna u qaadi kara hoosna u dhigi kara. Waxyaabaha ugu waaweyn saameynta ku lehna waxaa ka mid ah location-ka uu ka diiwaangelisan yahay YouTube-kaaga. Waxaana tusaale ahaan u soo qaadanaynaa Soomaaliya iyo Mareykanka. Kambaniyada ugu badan YouTube-ka wax ku xayeysiisto waxay ku yaalaan dalka Mareykanka. Marka kambaniyadaas targetkooda waxaa weeye in xayeysiintooda loo gaarsiiyo dalka Mareykanka, halka Soomaalida aanba wax ku xayeysiisan YouTube-ka. Hadday ku daawadaan 1,000 qof oo Soomaali ah iyo hadday ku daawadaan 1,000 qof oo Mareykan ah, isku lacag maaha. Waxaa laga yaabaa 1,000 qof Mareykanka jooga ay ku daawada in lagu dhufto $10 iyo wax ka badanba, halka kuwa Soomaalida laga yaabo in lagu dhufto $1 iyo wax ka yarba. Qodobka labaad waxaa ka mid ah waxa aad ka hadlayso aad soo gelinayso channel-kaaga. Qodobka saddexaad, tayada muuqaaladaadu. Haddii aad muuqaalo tayo leh dadkan ay wax u soo kordhiyaan aad soo gelinayso channel-kaaga oo ay daawadaan dad badan, isla markiiba algorithm-ka YouTube-ka waxa uu muuqaalkaaga u diiwaangelinayaa inuu yahay muuqaal ay ka heleen dadka, waxa uuna sii gaarsiinayaa dad badan. Markastoo ay muuqaalkaagu daawadaan dad badan waa markastoo aad ka sameynayso lacag fiican. Waxaan rajaynayaa inaad fikir fiican aad ka haysato qodobka CPM. Haddaba aan u gudubno qodobka RPM. Waxaa lagu soo gaabiyay revenue per thousand. Waana isku darka lacagaha aad ka samayso kunkii qof ee daawada channel-kaaga. Waxaana la isku daraa dhammaan lacagihii ka soo galay bishan. Haddaba waxaa jira 2 qodob oo aad lacag ugu samayn karto shirkadda YouTube. Waxaana ka mid ah xayeysiimaha. Waxaa jira wax loo yaqaan YouTube membership oo ah inaad soo geliso muuqaalo gaar ah oo qofkii raba inuu daawado uu lacag bixinayo. Sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaan super stickers oo ah sticker ay ku soo diraan dadka oo ay shirkadda YouTube ay kugu bedelayso lacag. Haddaba marka la isku daro dhammaan lacagaha aad ka samayso shirkadda YouTube, waxay qaadanaysaa 60%. 40 ka soo horeyn adiga ayaa iska leh. Haddaba labadan qodob ayaa ah sida shirkadda YouTube iyo dadka wax soo geli ay lacag ugu sameeyaan. Haddii aad nala soo gaartay halkan oo aad weli nagu soo birin, fadlan nagu soo bir. Mahadsanid.